meel alla meesha tagtid waxa arkaysa Soomaali waxaan tagay New Zealand wadan la yiraahdo oo aakhir adduunyada meesha qoraxda ka soo baxdo New Zealand waxay ka kooban tahay laba jasiirada hore aan tagnay Soomaali badan baa ku nool imaamiyadu waa Soomaali dadka ma arag Soomaalida aad baa loo jecel yahay waa ka tagnay waxaan tagnay jasiiro kale oo dhinaca qorax ka soo baxa jirta Christchurch magaalo la yiraahdo waa magaalada adduunyada ugu horeysa ee qoraxda u soo baxdo طبعا magaalooyin ka hor jiro laakiin magaaladaas waa magaalo weyn oo Christchurch baa la yiraahdaa magaaladaas aan tagnay masaajidka ugu horeeyo ee adduunyada Allahu akbar ninka yiraahdo waa nin Soomaali ah masaajidka imaamkiisu waa nin Soomaali ah ninka markii adduunyada qoraxda soo baxdo Allahu akbar ta ugu horeeyo yiraahda waa nin Soomaali ah طبعا qoraxda xag ka soo baxaysa way soo soconaysaa ilaa dadka caalamka ay ku soo tukadaan faa'iido u noqotay waxa kale Soomaalida lagu amaanaa quraanka ay qaybsan yihiin waxa laga yaabaa masaajidda Yurub ku taala inta ugu badan leh bisha Ramadaan Soomaali tukiyo oo kan dhafoorada xiiran leh musuqa jooga inuu quraanka qaybsan yahay laga yaabaa ee Soomaaliya ka yimi oo hadduu bisha iska soomo inuu galaba xagga hore uu dadka tukiyo quraankaasna caam bay ku noqdeen oo ninka Soomaaliga marka la arko waxa la moodayay in dhamaantood ay wada xufaadiina quraanka yaqaaniin cunsurka kaliya ee Soomaalidu diin ahaan ay rumaysantay in la qabtaana waa masaajidna waa dhiseen oo wadanadaasi dumarka Soomaaliyeed baa dahabkooda iska ururiyay dhalinyarada Soomaaliyeed baa boqolka baan iyo $100 iyo $1,000 bixiyay bulshada Soomaaliyeed daara badan oo masaajid ah inkastoo aan ka warbay 700 sano ka hor buulay Soomaalidu waa dad jinsi kala oo ka aqli badan basharka la nooliyeen ma taymsa ila aminka sidii ma taymsa ma Afrikaanku waxay idin yaqaanaan Yuhuudda Afrika idin yaqaanaan xagga xisaabta iyo aqli badnida imtixaanka waxaad isku xukumi laadihiin u heshiin laadin waa aqliga faraha badan ee zaidka ah wadi faanteen baan u malay waxa saawleeyahay waxa la rabaa dadku inta li soo aqli badan iyo shacab la hogaamiyo inay noqdaan ardayga Soomaaliga ka yar 20 jirka iyo odayga 8 jirka isku waxbay dareemahayaan way masri kartid indhaha ma qaban kartid adeer waa ku fahmi ku leeyahay